السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada isku soo noqod kale oo wanaagsan waa maamuwaane iyo mar kale waa barnaamijkeeni dhoodhoojinta dhiirigelinta caafimaadka. waxaan joognaa channelkeeni ilaahay baa wax leh dabiib iyo dadaal qololka hoosena waxaan joognaa caafimaadka guud. inta ay dhageysanaysaan wixii dhiirigelina insha allah waxaa ka fahantaan qaata ilaahayna idii kaalmee aamiin. soo dhawaada welcome. waxaan ka jawaabayaa su-aalaha dhoodhoojinta dhiirigelinta u baahan jawaab khayr qabta allaha ii soo dhiibo aamiin. su-aashan waxay tahay mama hormoonka hadduu isbedelo lafaha ma qalloocdaan? yes, waxa ugu horeeya oo gabdhaha lala doono waa dawooyinka quseeyo saboodka lafaha ama calciumka. okay, weliba anigu waxaan aad u ammaanaa midda adiga xorriyadaada u gadanaysid. marka definitely ma aha inaad dayacdo isbedelka lafaha. haddaad dayacdo hadhowto waa inaad la noolaataa lafahaagii oo kala qaqallocday marka ama gabowgii zaa'idkaaga muuqdo. gabow maba diideyna laakiin saameyntaan diideynaa, saameynta gabowga waayo kasoo noqoshada ama ribeerka nafta loo sameynaa wax badanaa loo maraa. marka yes, lafuhu way qalloocmaan wayna baaba'aan, xanuunna wayba keenaan. qalooca xanuunkaaba ka daranba, dadka qaarkood ma istaagnaan karaan waqti dheer. so yeah, soo dhawaada caafimaadka guud ku soo dhawaada ee dabiib iyo dadaal team blue diamond. waa dhiirigelintii qololka hoose insha allah. dheefta doonta cunacaba caafimaadku ceesha. su-aalahana soo dhaweysta. hormone imbalance lafaha muxuu u leeyahay oo isbedela? lafuhu easy dadka ku jabaan xataa. okay, waxaa laga yaabaa kabdacas hadday in yar kula simbir xataa ama in yar lac dhinac u dhahdo lugtaba inay kala jabto ama ay murgucato. easy ma aha marka qofka lafuhu daciif yihiin. aadaa laysku ilaaliya, ilaahay hana ilaaliye. okay, maxaa u sameyn kartaa lafaha? dabcan kululayn ama dhul kulul tag ama jim iska soo qarsoonaha gal, jimicsi samee. kulaylka lafaha wuu u fiican yahay, qabowga u daran. ciladaha jirka ku dhaco arthritis-ka iyo osteoporosis-ka iyo markay noqoto qabowga wuu soo kacaa, xataa jug ahaan u soo kacaa. marka qabow ma loo ammaanin. so cunno fiican muhiim waaye in la qaato si ma aragtay lafuhu xanuunkooda iyo kaarkooda aan loo dareemin. so definitely saa samee insha allah. isku rooroonaada xilliga aynan meel ku xanuuneynin. dabcan waxaa kasoo gaartaa layska cunaa, wixii alla kuu qadaro markaas aa heli kartaa layska cunaa. laakiin hadduu xanuun meel soo galo xanaalaa loo baahanya, xanaalo. okay, daryeel fiicanaa loo baahanya. aniga mar walba waxaa idiin ammaanaa wixii dhulka ilaahay kasoo baxay, wixii dhulka ilaahay kasoo baxay aa idiin ammaanaa. laakiin dadku inta badan dhiirigelintu ma qaataan ayagoo og inay u baahan yihiin wax dabiici, haddana way ka meemeereystaan. so please, haddaa xoogaa soo weynaatay isbedelna aad dareemaysa, ilaah weyna waaxide, daryeelka ha ka meemeereysanin. bilaash looma dhihin qof walba wuxuu cuno ciidamiyaa. isnaashnaashka caafimaadkaaga wadada loo maro cid kugu siboodayso ma jirto. kasoo qaadka ilaahay baa iskale. haddaa gabar xaasataa laga yaaba ninkaaga inuu dhaqaalo fiican ku siiyo, isku dabiibto, adiga inaad shaqaysato ood isku ogolaato. ciddi kaloo ilaahay kaaga soo qaado. laakiin daryeel haddii loo baahan yahay farta wixii lagu fiiqabo waa lacag. so haddaa nafaqo u baahan tahay nafaqadiina aadan gadanaynin de waa rabaa roobaa lagu waayo waayo. haddii lasoo dhuldhaco oy dadku aad u damqadaan ama ay caafimaadka ka kici waayaan, hubaal xal waa la raadiyaa. laakiin lama sugahe intaas haddaa sugtid adoo kala hoobatay, maqaarkaagii hoobtay, timahaagii hoobatay, ilkahaagii ama lafahaagii dhibaato ku dhacday, aad u liito, dhakhtar in lagu dhigo u baahan ayaa daryeelka la raadiyaa. I don't know why loo sugo ilaa lala soo dhuldhaco. so please weligaa ha sugin insha allah. isku roon maruqataa layiri, anigana ma dhihin, soomaaliya tiri, waana muhiim. okay, isbedelka hormoonka waxyaabaha kale oo keenaa waxaa kamid ah qofku inuu noqdo amardiid. qof buko boqol kuu talisa maxaa loo yiri?
haddii sabood loo baahdo ama caafimaad loo baahdo ilaahay baa haye boqolaalo sabooda fiican. Okay, haddaa hal meel fadhido da halkaas meel daryeelkiisa haysanaysaa, laakiin wax badan haddaa haysatid waxaas badan allaha kugu bogsiiye daryeelkiisa haysanaysaa. taas waa loo amaanay boqol sabood. Okay, not one support, not two support, boqol sabood. marka maadaama ay noqotay boqol sabood, haddaad adigu hal meel ka fadhido hal sabood ama laba sabood aa haysato gaasir waa imaanaa. marka taas waa loo dhahay qof buko boqoli kuu taliday. waayeelnimo hadduu wadkuna daayo wax la celi karaba ma aha, waa wax imaanayo maasha allah, waana wax fiican inay imaato, laakiin waa inaad reedi tahay. hadhow haddaad la damqato ama aad ku andacooto maxaa ku dhacay tinteydii, maxaa ku dhacay maqaarkeygii, maxaa ku dhacay lafaheygii, wixii ku dhacayna aadan soo baaraynin, dan afka lagaagama sheegi karo. hadda ani dabiibaa ka shaqeeyaa, waxaa laga yaabaa kumanaan symptom inaa aqaano waxay yihiin, haddana kuguma shaabadeyn karo waxaasaa tahay. diagnose ani kuma siin karo. Okay, indhahayga iyo macallina haddaan arko qof cayilan waa dhihi karaa cilada horta cayilka waaye, cayilka soo rid, ilaa waa wax muuqda mogta. laakiin qof hadduu dhaho korka i gariiraayo, ha korka maa ku gariiraayo, ha waa ciladaas, ma samayn kari. anoo og inay qiyaasta ciladaas tahay iyo ciladaha u dhadhow lala gariiro, haddana kuguma shaabadeyn karo, qalada igu tahay. waa inuu dhakhtarku soo confirm gareeyo waxa aa la gariiraysid waa saas. laga yaabay dadka qaar hadday gariiraan waxa ay la gariiraan waa on ama hurdalaan ama nervous ama distress. jirku waa maskiin. haddii la dhaho qof kastoo dhidido, gabar kastoo dhidido oo menopause tahay, dadka qaar ee dhididayo sokoraa soo hayso, dadka qaar ee dhididayo jirkooda nervesa ku jiro waa laga cariisiiyey, dadka qaar ee dhididayo caloosha taagan, wax kalaba kama hadlaysan. alxamdulilah, calool istaag xunay leeyihiin. dhididka waxaasaa ugu wacan, afqaraarka waxaasaa ugu wacan. so haddii ka hor lagugu shaabaday habeenkii maa dhididahaa khalaas menopause tahay, no one should do that. qofna inuu kugu shaabaday cuduraadan lahayn dhakhtarna kugu soo confirm gareyn ma jirto. cudurka marka la confirm gareeyo baa xalka la raadi karaa. marka insha allahu khayr, xal khayr qabo allah keeno, aamiin. okay, su-aashaa muhiim waaye. intaana cashir bixinta gudaha aadin, intiina memberka ka ah channelka, gudahana memberka ka ah, hadba halkuu kaaga soo hormaro cashir bixinta insha allah igala soco. so su-aashan waa muhiim. 3 dhakhtar oo 3 wadan oo kala duwan ayaa igu tiri ugxaan dhan malihid. arrinkaas aad ayuu ii damqay. wax awlaada iima joogta, xag rabbi jiraan. maxaa igula tali lahayd maama, maxaase ka qaban karaa? okay, ilaahay baa bixiyo, horta waa run. laakiin haddaan fiirino daayadkeena ruwaynin yeelaa wuu yahay. daayadkeena daayad ugxaanta iyo la baaba'do wuu yahay, haddaan de kolley indhaha layska qabanaynin. marka maxaa tale tale waa tii ilaahay. waxaan kugula talin lahaa horta ha isqalbi raacinin, qalbiga alle ha kuu dejiyo. midda xigto, hormoonku waa wax ku shaqeeya level. haddii aad af soomaaliga u fiirsato kelmadda la yiraahdo nin walba wuxuu cuno ciidami ah, da waa wax adoo muuqdo. so haddii aad isla tacaal samayso, isla tacaal weliba aad daacad u tahay samayso, ilaahay ha kula garab galay. muddo aad daba socoto waa ka soo kaban kartaa, waana laga soo kabtaa. insha allah ugxaantu waa daciiftaa, wayna soo kortaa. laakiin haddii ayaga kuu rameen waxa ay kuu sheegeen waa waxay kaa arkeen. inay daciiftay sheegaan. mahmahdii kale waxay ahayd ma aragtay dhakhtarka siduu wax u ogyahay uma sheego. qof walboo dhakhtarka u tago haddii lagu dhaho daryeela u baahantay orodoo doono, de dhakhtar bacidnoo ma baahateen. so that's why dhakhaatiirtu ma dhahaan daryeela u baahantay, waxay ku dhahaan way kaa dhammaatay. haddaad daryeel doonanaysid waa yeelkadaada, adigay kuu taallaa, good for you, adayna kuu fiican tahay. muraadkaaga haddaa ku heshidna ilaaha kuu sahlay, ilaahay baa kuu saqiray. so waa kaasaa gudlaga idin leeyahay. cashirkaan gelaynaa insha allah. intiini aan la ballamay insha allah taga qolka ila sheergare, xaggaasaan idinka soo qaban doonaa. wada shaqeyn wanaagsan insha allah. soo dhawaada. intiina barnaamijka rabta ee channelka joogtana
fartiin ku reeba nambarada hortiina yaala hadduu ilaahay ka raali noqdo. soo dhawaada welcome. wadada loo maraa waryaalaha idin dhihi jiray isla tacaalka warsan iyo weersan qofku ilaahay siinayo uur qaadistu waa easy. Okay, ilaahay baa bixiyo, ibni aadan kama sugtid. ilaahay baa bixiyo awlaad kheyr qabta oo saalixiin oo baariin ilaahay weydiista. meeshan waxaa jooga dad si kasta iyo dhinac kasta iyo arrin kasta looga soo dayriyay. maantana waalidiina yaa siiyey ilaahay. soomaalida waxay tiraahdaa marka loo dayriyo ama qof oo waxun ku sheego adaa yiri ilaahay ma dhihin. marka dhaqaatiirtu waxay arkeen ay sheegeen. adiguba haddaad wax aragto soo maada sheegteen. adiguba qalad haddaa aragto qaladka ma sheegteen. oo wanaag haddaa aragtana amarka ilaahay idinkiisa soo wanaaga ma sheegteen. dhaqtarka wuxuu arkay loo sheegay. Okay, wuxuu uu yaqaano oo aqoon u leeyahay buu kuugu adeegay. maanta dukaanka dahabka haddaad tagto hilib faraasha kama filatida, dahabaa ka filataa. dukaanka dharka haddaad tagtana hadduunan kaba ku haynin dan kaba ma hayo kule, laakiin dhar baan hayaa sooma. haddaa kan cadarada tagtid oo ka war aad digsiyaal weydiisatid ma ka hele? waa may. soo haddaa dhaqtarka fertilityga u tagtayna fertilitygu kaaga waramaa. dhaqtarka indhahu kaaga waramaa. dhaqtarka lafahu kaaga waramaa. adna waa inaa fahansantaa waxaa dhaqtarka ula xiriirtay oo ballan uga dhigatay. haddii dhaqtarro kala duwan wada isku afgarteen ugxaantaada inay daciif tahay, waxaa lagaa rabaa adiga goor intay tahay inaa xal u raadsatid. haddii ugxaameynta iyo uur qaadista muhiimkuu tahay, haddayna muhiimkuu ahayna waa iska ogaasho iyo hubsiina iyo iska dhagadhageynay ka ahayd. laakiin adigaa lagaa rabaa inaa xisaabtantid ood isweydiisid arrinkaagan fertilityga ilaa intee uu muhiimkuu yahay. maxaase ka qaban kartaa? hadday tahay awood dhaqaalo, awood daba socod. dadka qaarkood they don't have time for naftooda. adduunka kale way u hayaan naf ka daba orodka iyo reer dhaqashada iyo wax walba, laakiin naftooda waqti uma hayaan. allah kuu sahlo waqti hadduu arrinkaaga muhiim ku yahayna meel soko allah kaasii aamiin. insha allahu kheyr. haddii kolley dadka qaar ay caado ka maqan heli lahaayeen rajada ubad inay dhalaana way u fiicnaa lahayd. laakiin caadada naftirkeeda ilaahay baa hayo. halka ay taalo dabiibkana lama yaqaano. anigaa idinla hadlaa idinkala shaqeeya qaabka caado u heli leedeen, ugxaan u kori leedeen, rixim u nadiifi leedeen, burooyin ula dagaali laheedeen, hormoon u sixi laheedeen, caafimaadka guud iyo caafimaadka gaar u nafaqayn laheedeen. kanaa kaa keeni kara haddaan ku dhowaa dambaabe. wax ku siina anigu maaqaan. ilaahay baa wax bixiyo. dadaal unbaa inoo furan. wadada dadaalka duca dabadeed. intaas qofku hadduu iimaanka ku qabo insha allah qofkaas kheyrkiisa waa helaa. waa yaa aaminta ilaahay, yaa u dadaasha ilaahay idankiisa dantaada. guusha allah kuu soo hooyo. aamiin. waa inoo iyo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo gudahaan aadi doonaa iyo cashir bixinta programka. soo dhawaada dhammaantiin welcome. kaararka soo galaya programka soo ceshta insha allah. adeega soo idinkugu soo galo. kheyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiiy dhammaan. intiina youtube joogtana salaan sare fartiimaha aan reebataan markii aan haleelaan soo jawaabayay bliis ii suga yaahe. fartiin codar reeba, salaan leh, barasho leh, kabacdina waa kaasaa. ka raali ahaada komanka waa xiran yahay. qaybta laagana waa xiran tahay. intaasna waxaan u xiray muddo dheeraa idin dhahay sabooda programmada ma saboodiin. sow anigana waan xirtay. laakiin qofkii ballan rabo ama programka rabo waa soo geli kartaa qadka. waddamadaan la shaqaynin iga raali ahaada waa idinka xirmaa. waddamadaan la shaqayn waa idii soo jawaabaa. simple waaye, isma saarna howsha. dhiirigelinta waa leedihiin, dhagaysta insha allah. danihiinana allaha nuurka idii saara. aamiin yaa rabbi. haye waa inoo iyo ta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. caafimaada ilaahay noo wada weydiiy dhammaanteen. soo dhawaada welcome.